waxaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland fanaanada caanka ee Farxiyo Fiska fanaanadu marka ay soo gaadhay garoonka caalamiga ee Cigaal International Airport ee diyaaradu ka hadaan kana soo degaan ayaa halkaasi waxa uu tubnaa boqolaal kamid ah taageerayaasheeda iyo waliba fanaaniin kala duwan ugu horreyn ba halkaasi waxa ka hadlay Abwaan Xasan Dhuxul Laabsalaax iyo Abwaan Xaaji waxana hadaladoodii kamid ahaa abwaanada iyo halabuurka fanaaniinta kooxaha kala duwan waxaan aad iyo aad halkan ugu soo dhaweynaynaa Farxiyo Axmed Cadaawe Farxiyo Fiska oo mid kamid ah fanaaniinta caanka ka dhulka Soomaalidu degto Farxiyo Hargeysi marti kuma aha waa madasheedii waa minankeygii waa magaaladeedii Farxiyo waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawow mar iyo laba iyo saddex hadal badan halkan oran maayo Cabdiraxmaan Oday baan ku wareejinayaa kalgacal iyo muxub baan ku soo dhaweynay Farxiyo waxay qaban doontaa barnaamijyo kala duwan Hargeysa si weyn bay noola joogaysaa shacabka qaybihiisa kala duwan saan u soo dhaweynay loo soo dhaweeyo ayaan u soo jeedinayaa Hargeysa way u baahnayd waa fanaanad aynu aad u wada jecelahay waa fanaanad si weyn looga taageero guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto Hargeysa oo madashii fanka ahayd oo si gaar ah looga si jeclaana haddii ay maanta inoogu timi Farxiyo waxaan leenahay magaaladaadii baa timi Hargeysina way ku tabaysaadna waa tabaysay ku soo dhawow Farxiyo Axmed Cawad baan maanta soo dhaweynaa waa hooyadeedii waxaan leenahay welcome home thank you waxaan ka soo fanaantiyo shicibkii reer Hargeysa oo ku jecel geesta kale waxa hadalka iska daba qaatay fanaaniintii kala duwanaa ee ku sugnaa goobtaasi hadalka abwaanadii iga horeeyay dhamaanteen waxaynu taaganaynaa soo dhaweynaynaa waa fanaanad qaaliya walaashay Farxiyo Axmed Cadaawe Farxiyo Fiska taasoo leenahay magaaladaada ku soo dhawow barnaamijyo badan waanu insha Allah way inoo diyaarsanayno qabato walaashay baan soo wada dhaweynaa welcome baan leenahay Farxiyo Axmed Cadaawe fanaaniin iyo abwaaniin iyo taageerayaal iyo saxaafadda xorta waa Farxiyo Axmed Cadaawe Farxiyo Fiska aniga dagaar bay igu tahay magaaladaydii bay ka timid walaashay weeye waxaynu muujinaynaa in Hargeysatay hoygii fanka qof kasto aaminsan in hoygii fanka tahay sidaas ka weyn ayaa loo soo dhaweynayaa horta okay ma wadatiin horta hadii aan tabaysay inoo ka haysaa habeenkii fid hooyanaysay oo raadayay samcaan madaarkay ku haysaa dareenkooda waxaan ku soo dhaweynayaa fanaaniin aad u qaaliya oo iyaguna ka soo qayb galay soo dhaweynta Farxiyo ee Fiska waxa weeyaan hibaaq gobaad iyo waliba sahrakiin maxaa maanta dareemaysan maadaama aad soo dhaweyseen fanaanadii weyneeda Farxiyo Fiska walaashay Faaduma Riyaade aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta walaashay Farxiyo Fiska oo aan ugu taageerayaasheeda kamid ahay waxaan leeyahay walaal wadankaagii baa timi dadkaagii baa u timi dad ku jecel baad u timi soo dhawow bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay maadaama Farxiyo Fiska inoo timi nalka inoo daaraysa habeenkeeda yaan la moogaan waxaan halkan u taaganahay soo dhaweynta walaasheeda qaaliga fanaanadeena weyn Farxiyo Axmed Cadaawe Farxiyo Fiska oo leenahay ku soo dhawow wadankaagii iyo dadkaagii oo ku jecel waxaan ku farxadeeda maanta ma cabiri karo Farxiyo Fiska oo aan adduunka ugu jecel oo aan taageeri jiray walaashay Farxiyo Axmed Cadaawe soo dhaweynaa welcome to Hargeysa leenahay boqorada fanka anigu si gaar ah u taageeraa waxaan ku soo dhaweynaa Hargeysa waa hoygaaga ku soo dhawow bahda Real TV-na aad baan u salaamayaa soo dhaweynta aad buu ka qabay ugu dambeynna halkaasi waxa ka mahad celisay sidii loo soo dhaweeyay fanaanada caanka ee Farxiyo Fiska waa idin salaamo dhamaantiin walaalahay qaaliga ah oo ma sha Allah saan ii soo dhaweeyay horta aadan ugu xumahay inaan soo daahno maanta oo maxay diyaaradda nala soo daahday dileed noqotay waa idin mahad celinaa Hargeysa intaas aan rabo inaan imaado weligay ma imaan am soo happy inaan Hargeysa joogo maanta shacabka weligay ana aragan jeclaa walaalahay aad u mahadsantihiin insha Allah Faadmo Ismaaciil Muuse Faadmo Riyaad Real TV magaalada Hargeysa